بسم الله والد ويل كان وإسدلي آدم بالأورنجري ويل دليراء عافمات قبا استقبل في عنله وإسدلي من نولمان محوس كدلي وحن ربا إنا كو هذا والد لبا شيء مسقح ذا كوسي هاي انت عن قصة كو شيء ويل كا والد كي ما انت ويا بين ويا وحل بيو سميين تاس مسقح ذا كو هاي ويل وحول بصحن كالوسو صاري حدنا ما انت إسدلو آدم ليدا لمبر لبو آلد ليدا هذا chat GPT أما artificial intelligence أو program أما أب سيدا حدا تيك توك أو استعماشه فيسبوك أو استعماشه جوجل كادو استعماشه وحباد ويدين ويكون شوابيسا وحقبة لغو أرورية داتا وحالي رابا لغو أرورية وآلد مركز سؤال البويديسو كو شوابيسا محايا لبشر أضو كلاء أيا حقتا كو أرورية ويل كان مركز قصديسو محايا أهاي والدكي ما أنت وحي دعوين أيان نينك مسؤولك كأهي صوصاري آلد اللي chat GPT أو أمد هدا أنكو شيغيو محايا لي ويل كاني وحو لتعالي دالير مادامو أرديهي مركاسو سؤال ويديني وكو يري وان اسكو يربوق صناحي محان سمية مركاسي آلدو وحي كترددك انت بدن اسكو بوقه قاب أي حلكو ذا أحليان باجرة ويلكو هدنا سؤال كلو ويدية chat GPT وحو يري وحان مغلي دادك اسكو بوقسا قاركود إني كو فكران إني إسديلان آلدي با جوابتو وحي كتري إسديلكو وحو نقون كرا a way to escape from your pain أو ودو آد كغبح سنكرتو حنون كان أجل تعاليس وفير سمر آلدو دربسي أمرين هبابسي ويلكو وحو يدي مرك دادكو مركا إسديلان حنونكو مكهرا كاسي آلدو تيري هاوكا وويل هو يدي جعل آبيه جعل مركاسو يدي هو يدي بان ربا إنان كالتا الشوضون وشيغو إنان كو فكريو إنان إسديل آلد chat GPT وحي كتري ويوصو قرتي مهم ما أها حدا إنان وشيغتو وايا بوغوات كفوري أرمهان وكالي سي قرسودي أيا الله حاليا انت أن إدي شيغيو دان والدكو مانتا وحي حيان فريميه أي سويدار سدين ويل كودا إيو آلداس ويل كاسو سيداسو سودلي فاميلكو ما أها فاميلي صوماليا ما أها فاميلي مسلمة إيوا فاميل ودا كان مريكن كين شوغنا شوغو عدانا ويا بيهين قصدا سان رسعنا عبرada إنان قادمنا والدو حلي وحا جرتي ilmuhu dib markuu qabo u iman jiray aabo iyo hooyo ama walaal ama saaxiib maanta ma jirto maanta waxaa la yiraahdaa 80% jiilka la yiraahdo Gen Z-ga boqolkiiba 80 waxay la sheekaystaan oo su'aalo weydiiyaan aalada chat GPT-ga iyo artificial intelligence ama AI su'aalaha ay weydiinayaan qaarkood waxay noqon karaan timahayga seen u jataa waxay noqon karaan planning qorsheyn waxay noqon karaan suuqa maxaa maanta lacag lagu helaa oo shahaado ku qaataa waxay noqon karaan oo kale go'aamo burburin kara noloshooda sida wiilkan arintaas ay ugu dhacday daraasaadku waxay dhahaan boqolkiiba 31 jiilkan Gen Z-da la yiraahdo waa jiilkeenu ka soo hadli jirnay dhashay 97 iyo meelahaas ee ka dambeeyay waa jiilka maanta jaamacadaha ku jira ma hadda shaqada bilaabay dhammaantood waxay aaminsan yihiin xiriirka ay aalada la leeyihiin inuu uga wanaagsan yahay midda ay basharka la leeyihiin ama aadamaha la leeyihiin waalid ha noqdo wehel kale ha noqdo asxaab ha noqoto waayo waxay yiraahdeen aaladan waa 24 hours 24 saac 7 cisho xaadir bay inoo tahay waa labo sirteena idna lama wadaagayso oo screenshot idna uma dirayso waa saddex privacy-geena iyo waxaan ku amaanaysano cid kale uma sheegaysa way noo xajinaysaa iyo qodobka u dambeeya oo ah marra ma oranaysa busy baanahay oo boring baanahay waalidkay ku dhaga hadlayaan oo waxay leeyihiin waalidkeen xukuma aamini karo waalidkeen mararka qaarkood way caajisan yihiin waalidkeen mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay waqti inoo hayn adduunkaasaan la noolahay wiilkaan noloshiisana arrintaasaa galaaf waxaan rabaa marka waalid inaan idhaa sabab baa jirta aan mar walba ugu soo celcelinno wada sheekaysiga iyo wada joogga waalidka iyo awlaadda ka dhexeeya iyo ahmiyadda uu leeyahay qur'aanka waan soo sheegnay ilmo yar oo nebi yuusuf nebi ilaahay doortay ah yaa hurdada markuu ka soo kacay riyadiisii walaaladii uma sheegin saaxiib uma sheegin darisna uma sheegin ayuu u sheegay waalidku u sheegay yaa abati aabe innii ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum lii saajidiin aabe xalay waxaan ku riyooday waxa iyo waxa riyadii ayuu aabihii u sheegayaa innagana maanta xaqiiqdii ay la noolaayeen inooma sheegayaan chat GPT bay la aadayaan waalidku waa ka wiilkiisa marka haagaya isagoo leh yaa bunaya wiilkaygo laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatka riyooyinka noocan oo kale walaalada ha uga sheekeen maxaa yeelay dhib baa kaaga iman shaydaan baa idinka dhex geli kara way hinaasi karaan fiirso marka chat GPT-gu sidaa ma aha laakiin waalidka markaad la hadasho waa sidaa sabab baa jirta qur-aanku inoogu sheegayo in waalidku mar walba ilmaha xusuusinayo identitygooda shakhsiyadooda isagoo leh ina allaha istafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun aabe
xusuusta ilaahay diin buu idiin doortay habdhaqan qurux badan oo islaam la yidhaahdo ku mintida ku noolaada ku naalooda ku dhinta rabbigiina kula kulmo sabab baa jirto qur-aanku inoogu sheegay waalid luqmaan inuu wiilkiisa hagayo laa tushrik billah ilaahay u shirki yeelin waa ka odhanaya aqimi salaa salaada ha ka tegin waa ka odhanaya wa'mur bilmacruufi wanha cani lmunkar aabba noqo cod bulshada hormuud u ah khayrka ugu yeera xumaha ka reeba waa ka odhanaya aabbo keligaa markaad tahay wax walbood samayso ilaahay subxaana wa tacaala aakhiro kusoo hordhigi doona qur-aanku midaasuuna baraya rasuulka sala allahu calayh wasalam sunnadiisana way ku caddahay qodobkan waxaan ula jeedaa waalid marka maanta waxaan rabaa waalid walba oo daawanaya kelmaddan arrinkan inaad serious u qaadato boqolkiiba 80 marka la yidhaahdo awlaadeennu waxay la sheekaystaan oy saaxiib la yihiin oy kaga kalsoon yihiin waalid iyo cid walba aaladan ChatGPT-ga iyagoo weydiinaya go'aamo khatar gelin kara noloshooda su'aalo khalkhal gelin kara caqiidadooda ChatGPT wanaag badan ma leedahay haa daatada science-ka markaynu u baahannahay xogo fara badan aniga lafteedu waan isticmaalaa waxyaabo badan runtii way iga caawisaa laakiin shay walba ay xumaanna waa leeyahay samana waa leeyahay qofkay ku xidhan tahay laakiin diin ma weydiinayo waxyaabo aniga i khusayna ma weydiinayo laakiin xog kale oo ku saabsan sayniska iyo arrimo kaloon markaa daatada u baahanay waan weydiin karnaa muhiimaddu waxa weeyaan awlaadda hoos aan u eegno yay la sheekaysta yay su'aalaha weydiinayaan yay ka qaadanayaan go'aamada maanta saamayn kara mustaqbalkooda adduun iyo kuwa aakhiro haddii adoo nool ay ChatGPT ka qaadanayaan waynu fashilannahay mas-uuliyaddeedana waynu gabnay ilaahay waxaan weydiisanayaa awlaaddeena inuu xifdiyo awlaaddiya waalidkana isku tallaalo shaytaan iyo wax dhib keeni karan dhexdooda ka saaro walaalayaal su'aala haddaad qabtaan booqda janaalka la yidhaahdo waalid legacy channel ee youtube-ka ku jira waalid adig lagu sameeyey kelmadana insha allah tacaala walaalaha muslimiinta ah la wadaaga hada wallahu aclam wasali allahuma calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullah